أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد aada u salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan isnaqaano. marka waxaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa xabiibillah nabiyina maxamed bin cabdillah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin. ma bacd daawadayaasheeda jecel inta barnaamijka halo ku jira khadka hadaba bilaa barnaamijka xasan ku jira waa macaan اوكي الله يخليك أبو إبراهيم خليك في الخط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد aad baan u salaamaya dhammaan asxaabtayda gaar ahaan inta Facebook igula saaxiiba. waxaan ka hadlaynaa barnaamij la yiraahdo maxaa loo aamuso Soomaaliya. طبعا barnaamijkaas waa xasaas, dad badan aan jeclaaba xitaa caawa ka baqay inay gala qayb qaataan oo ka baqay inuu يعني qof dilo ama dawlad baan ka baqayna ama waa lagu qalin daaraya iyo qaar kale badan. laakiin waxa ilaaween inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yahay xayun yurzaq oo isugu dadka dilo oo arsaaqada bixiyo oo qofka adag yahay. aad baan caawa uga xumay barnaamijka, qof walba inuu ka gaabsaday. laakiin waxaan doonayaa walaalayaal, waxaan dad muslimiin ah alxamdulilah rabbil caalamiin, dhacdooyin fara badan oo loo yaqaano 4.5 oo ka jira Soomaaliya marka la qaaday meel ka jirta. laakiin dhacdadii ugu dambeysay ninkii la dilay la gubay barbaca wana ka hadlo. xaqa bini aadamku waa cajiib moogtay. qof lagu gubay ifka oo muslina oo lagu yiri waxa la yiri yani ma geyso mise waa geysa ama waxa tay jareer ama waxa tay mush caarif shino idinka caawa iga jawaabi doona insha Allah su'aashaas. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka wuxuu abuuray inay noqdaan dad muslimiin oo wada qaata wax walbo meel walba ka soo wada jeestaan. bini aadamka Ilaahayna wuxuu abuuray inay noqdaan dad mutasaawiin. saasana inama almu'minu ukhwa buu rasuulka Kaleey sallallahu marka inagu halkeen ka qaadnay caadadan foosha xun ee 0.5 baa leeyahay. kan waa la yasayaa, kan waa maxay, kan waa jareer, kan waa midgaan, kan mush caarif juuri, mush caarif أنا ولقي ما أعرف. لكن نينكي لو جبي بقى تعبطي نفط أن كواي حتى ما كلا جعلي نفط أنا يوجد تحت أن كواي ما كلا جعلي. وحنا نكحوا مع ضدك كأموسي حق إلى هاي أبو ري كأموسي أفك حداي. أما الدولة هالنقطة، أما أقارب هالنقطة، أما الشعب هالنقطة، أما مسؤول هالنقطة. إلهي كبقوا سبحانه وتعالى. نفط مرة بحذا نفط only one times. مركعوا برامج كان سنكهر لنا قف دلنا قرآن كوحة كويا من قتل نفس يقتل. قفك يعني قف دلون إله سبحانه وتعالى في القرآن كيسها لود إسنها لدلو حد كلا تصل. لكن هذين البقرة قبيل اسكو عاونه أما قبيل اسكو تاجرنا الدنيا وجبنية موقت والله العظيم وجبنية. بان وقح من مرقدي كده عدم مقالة مقدشون نكي وجدا بيه اللي جبي يلا بدأ حاسكت جاي أنا وانكحهم عضي وحنا جالسين يا أرنتها يا قيرة مالك السوء الدون كلا جت شو أي يعني دولد هالنقطة حضان هالنقطة عرب هالنقطة وانجالسينية إن كستو أنا وان عرب بكوكر سلون. لكن البنك human rights كهيسته we have to win انجالسية. مركا واحد نقول إسا قفكي آمسو حق آمسو وشيطان أخرس رسولك شيء عليه الصلاة والسلام. مركا واحد دوني قفل بو أرنتا أركي إنه شير جريه أرنتا وأرن آدو مروجا بدن يعني قف نفته اللي جو قف يعني حرام. مركا واحد يقرم يعني عاو برامج كي قرم مرتيا أبو إبراهيم. تفضل أبو إبراهيم. الله كدايه. والله السلام عليكم. بنكون سلام أبو إبراهيم تفضل. وأنا أقصنا عارفين بقى هي فربضة والله. والله السلام عليكم. الله يخليك الله يخليك. waxaan kaaga rajeeyaa in aad maartay arrimaha noocaas ee maanta ku dhiiranaysa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku dhameystiro waxa aan barnaamijka uga soo qayb galay ee cadiday maanta in maalmahan waxa miidiyaha aad ugu wareegayay oo si live waliba uga dhacday oo mujtamaca Soomaaliyeed dhexdeeda ka dhacday waxaan taariikhda hore loogu arag. صح. هذا بقى لسه ما. بكم مغلي يا أبو إبراهيم بسمعك. وحوي ولا لا. أرن كان ما أنت معي. ذاتك ما أنت lagu sheegayo magacyada ama jareer ha sheegtaan ama midgaan ha sheegtaan ama tumaar ha sheegtaan ee dadka horeba
rabbi subxaana watacaala uu abuuray oo uu u abuuray inay isaga caabudaan oo qura nacam cid loo abuuray inay addoonsato ama ka sarreyso ilaa bitaqwa maynu maqal nacam qofka waxaynu ka leenahay muslim baynu nahay 100% waxaa maanta guryaha hoostooda ka socda dulmiga noocaasa dadka hadii goor khadamka ah ee ka dhex shaqeeya guryaha ee ama jaariyad ama shaqaalaha ahaada ee lagu dulgumaysanaya inaan arkayno way badan yihiin laakiin waxaa maanta soo shacbacay qisa cajiib ah waxay dhacday qisa cajiib oo tiiba ka yaabisa marxuumkaas nacam maanta caruurtiisa wuxuu ogsanaya 12 biyaha ah ee weliba fiidii laga soo duubay ee daawanay ayaa hortiisa xitaa marka neefka ilaahay xalaaleeyay inaynu gowracno waxaa lagu ogolaaday in aad dhargiso biyaha siiso nacam sax waxaa lagu ogolaaday midida aad ku gowracaysaa in aanay kirkirin oo aanay si sidaca ee aada loo sifeeyo goysaha صح إذا إنه جورا بل واحد أركت بشر إلهي أبوري ولا جوبي وعن ضد اللي من أيها يسوع شاركي سيقول أو دحية عليه أيها اللي كان سير على الوجه ولي بعروتي في الوجه دلي ولي بالظهر عادي دلي عروتي في إنها طه سلعة يسوع ولي نفسي أنا كبحن بانجلا لا نعيب على بانجلا وارن nafta iyada oo ka dhicin ayaa haddana weliba inta lagu shubay fuel lagu shubay ama petrol ayaa dab la qabadsiiyey subxaan allah rabbi subxaanahu watacaala inuu dhulka la jaro ilan addoomihii la rogay ama ummadihii la rogay hore waxaa lagu rogayay soo afcaal noocaas oo kale awan may ahayn nacam sax in ilaahay dhulka buqcadda ay ku fadhiyaan la jaro ilaahay ma waxbay ku tahay waxba kuma yeelaa subxaana watacaala nacam waa la eegayaa waxaana la eegayaa dadka maanta aad ka sheekaysay anigaa ka mid ah adigaa ka mid ah waxaa ka mid a wax alla wixii ilaahay abuuray ee ashahaadanaya war waxaa halkaa ka dhacay wax la qaadan karo laga aamusa ka aamusaynaa ilaahay waajiga uu la hortegayo ee uu subxaanahu watacaala maalin aan cidina cid garab siinaynin oo inanku ama ilmuhu hooyadii aanu waxba siin karin baa ilaahay la hor joogsanaya oo 50,000 sana ah ayaa ilaahay la hor joogsanaya maxaa ilaahay ku waajahayaan maanta dadkaasi ka aamusay arrintaasi cadaab jahannam waxa weeyaan xagga waxaa layidhi dulmiga ka dagaalan haddii aad keri weydo carabka haddaad keri weydo ka hajir baa layidhi soo maaha nacam sax waarun waxa weeyaan waa la daawaday weliba media waa iska badnaado waxa aynu maqlaynaa in arrinkiiba la siyaasadeeyo dadkii loo xidhayna qaar damaarin lagu soo daray weliba waxaanu ma aqaana anigu ma kala aqaana dadkan waxa nin xildhibaanay gabadha walaala yihiin damaanadaabu kusoo daayay gabadhii aan gutay saasaan maqlayaa ilaahayna ilaahay baa warhaya laakiin carruurtaasi waxaa lagu sabirsiinayo ee maanta ay ifka ugu noolaanayaan aabahood lagu horgubay baangada lala dhacay iyo dulmiyada kale ee socda aynaan garanayne badan ee ka socda meel walba laakiin waxaa imika inoo muuqda waa qisadan cajabta le ee cusub sax waarun ee aan habeen dhicin ee duhur cad dhacday ee ka dhex dhacday ummad muslima oo taagan ee mas-uul leh ee sheekh leh ee culimo leh ee caaqil leh ee suldaan leh ee wasiir leh ee baarlamaan leh ee sheeganaysa madax ee ra-iisul wasaare sheeganaysa ee madax sheeganaysa ee bal ubadda taagan halkaa ee aan u baahnayn maanta dembiga halkaa ka dhacay inaanu murangelin ee ahayd dadkii inta lasoo wada xareeyo dadkii waxay ku qancayaan waxaan walaala ka xumaaday odayga dhalay ninkaas wuxuu yidhi isagaa iluga ahaa isagaana indha ahaa buu bakawar isagaana ciidana isaga ayaa iina indha ahaa iina luga ahaa waan anigu wada daawaday inkasta oo imika intii barnaamijka aanad bilaabay aan meel ka yar khalacsaday inankii iyo inantii lalahaa way isguursadeen qola dhalinyaro oo malaha soo fadhiisiisay oo arrintii waaba laga hadlaya waan maqlayaa si fiican ha waxaan se jecel lahay ilaahayna jecel yahay xaqa in lagu dhawaaqo oo xagga bini aadamka oo takoorka iyo sida ilaahay muu odhanin yasa waxa weeyaan nin islaam xale xitaa waxaan arkayay
ninka hortaagnaa baarlamaanka ninkaasi luqaduu ku hadlayay waa af soomaali wuxuu ku dhawaaqayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wuxuu u daliilinayaa aayado qur-aan ah waa ninkaa islaameed waa ninkaa quruxda badan leh ayaa baarlamaanka hortiisii waa meeshii lalahaa ummadday ayaga ugatashaa ayaa yidhi war xitaa salaadii aan tukanayay ayaa talaka isagoo lagu yiri waxaan ku toosteen madaxweynaha iyo waxaan ku moodinay ugandes ma ilaah baan kugu dhaasheeye ma waxaasaa wax la dhagaysta ah ma ummadda nooca u nool baa doonaysaa in ilaahay ka badbaadiyo masaa'ibkiisa wallahi baan ku dhaartay inaanay badbaadaynin aan maanta cid badbaadaysaa jirin dulmigaasi dhulkaa la go-iyo masaa'ib fool xunxun baa ka dhici doona haddaan xagga la waafajino lasoo bersiinin dadka taasi waa taa tala haddaba maxay tahay aniga siday ila tahay weeya ninkaa islaameed baan ahay ninkaa ma aqaano waa ninkaa aan halkaa ka daawaday caruur baan leeyahay sidaan u noolahay inuu noolaadu jeclaa caruurtiisa sidaan aan ku rigaba inaan u maaragtay arka ayuu jeclaa in maanta lagu dhaafiyo silcaa ayaa maanta idamaqday tala haddaba aniga waxay la tahay haddii meeshaasi ay wax jiraan ummadaasi hadday wax jiraan isaga dulmigu dhamaaday dib u soo baxay marka shaaha la kariyo soo ma fataho aad iyo aad u fataha dulmigii waa karay wuu fatahay wuxuu soo booday dibadda wax la qariyo ka batay waxa qari uu ka batay ha nacam dulmigu waa baynu maqlaynay dad la yasaynu maqlaynay waxaynu maqlaynay maxaynu maqlaynay dibaddu u soo baxay in baangada inta lagu garaaco bahalkan la yidhaahdo ay bahal leed iyo maxay ay ku sheegayeen sun ayaa waxa la ninka lagu dhiftay sida Uganda dabadeedna waa la gubay isaga oo weli nafta aanay ka bixin weli halkaas meesha la sii garaacay wakada waa door wax la garanayay waxaan maqalay adduunyada ka dhacay muxuu ahaa ciqaabaha ka dhacay Ciraaq waxa Afghanistan ka dhacaya waxa adduunyooyinka aan aragnay ka dhacaya ee la isku hayo adduunkii la leeyahay qofkaasi wuxuu ku xadgudbay xuquuqda bini'aadamka inagoo oo Soomaali ah maanta hortiina lagu xadgudbay in wax laga qabto waxa looga aaminsan yahay maanta dadku ay ugu wada galeen barnaamijkan ama mid lamid ah ama tiifiyadii waan arkaya waxyaabo kale ka socda waxaa looga hadli waayey sida waxaa looga hadli waayey السلام عليكم شوغن وشو عجيب حسن كنت وقال wax looga aamusay oo dawladdu aamusay ama dadku xitaa aniga caaw barnaamijka waan ka soo qayb galaya barnaamijka caaw oo soo bari dad badan bay ga aamusay caaw oo baqay waa siyaasade waa la baqayaa waa dawlade yaa laga baqanaya xaqa ilaahay subhanahu wa ta'ala baa laga baqanaya ninka xamar jooga ha hadlo oo ka kismaayo jooga ha hadlo oo ka adduunyada jooga ha hadlo oo ka meel walba jooga ha hadlo waxaan leeyahay dadka taladeedu waxa weeyaan ilaahay haddii laga baqayo in uu badbaado ilaahay rabbi subxaanahu watacaala laga rabo inaynu badbaadno baaqiga haray dadkaasi dulliga ah ee waxaa galay ee ficilka noocaasa ku dhaqaaqay cuquubada ay leeyihiin ama jazaa ay leeyihiin hala mariyo waa kow ubadka halkaa daadsan ee uu ka tegey iyo labadiisii xaas iyo aabihii ehelkiisii ummadda islaameed yaa lagu eegin meeshan wax dawlada ma jirto ummadda islaameed intay mar wax isu geeyaan adna aan kaa dalbanaya walaalo barnaamij tabarucaada inaad samayso ka gasho oo dadkaasi lagu hagaajiyo oo ummadda yaryar carruurta yaryar wixii wax loo qaban karayo qof waliba ka geysto soo laba maaha sax waa laba saddex inta hadday ee nooca dadka noocan loo gelayo ama guryaha hoostooda ku dhibaataysan ay dhalinyarada iyo dadka haldoorka ah iyo ummadda caqligoodii mu wada dhammaan weli dad baa nool ay kacaan oo loo sameeyo ummad xuquuqdooda u dooda oo xuquuqda ay ku leeyihiin ku shaqeeyaan dadka noocaasi u soo dhacaya oo dabagala oo ka warhaya human right ha sax inta haddii la helo badbaado xagga ilaahay subxaana watacaala waa laga badbaadi nacaradiisa intaa haddii la waayo oo aynu ka sheekayno arrimo kale oo maanta tiifiyada maanta waxaa ka badan yihiin maanta tiifiyada soomaaliga ku hadla iyo inta iminka kusoo gashay meelahan maxaa la yidhahdaa social mediaha kusoo gashay liveka waxay ka badan yihiin kumanaan waxaana arkaysa iyadoo maalayacni laga sheekaynayo waa qisadani waa qiso lagu cibro qaato
xayawaanka ayaa ilaahay inoo xalaaleeyey inaynu cunno munaafacaadano haddana sidii aynu u dabxi lahayn ama aynu u gal lahayn xaq buu ilaahay siiyey iyo dhowrid in la dhowro صح bacda la bashar bini aadama oo ilaahay abuuray oo waalid oo aabba ah oo intaasoo caruura leh ayaa maanta laga nixi waayey gaasii loo dila xitaa oo dambigu galana aan la garin waxay noqotay iyadana tala kala caansiinayaa hooyada jareer magaca jareer la yidhahdo ninkaas waxaa sharxagay jareer lama yidhaahdo jareer waa lama yidhaahdo qabaa'il bay leeyihiin oo sidan ilaahayda ummadda u abuuray ee qabaa'ilka u wada jira leyn isku gartaan bay u leeyihiin magacani waa magac guud oo waa jareer waa tiba adag saasaan anigu u macnaystay صح xalay wuxuu yidhi dadku waa jareer iyo jiric yani waa tiba jiric inagaa tiba jirecsan afrika mayna inaguba xag beenta isugu sheegaynaa waxa weeyaan jiric iyo jareer buu yidhi xalay saasaan u kala fahmay صح ninkaasi xalay wuxuu uu sharxayey waxa weeyaan waa iyagu idinku dib isugu noqda ummad baa tihiin ilaahay abuuray maxaa idinka doonaysaan waxaan idin doonaysa adeekata waxaan iyagu idima rabin maxaa idinka doonaysaan idinku ummad dhaqan baa tihiin is urursada isguursada iska garansa kol haddaan lagu doonaynin adna inaad qiimahaaga hoos dhigto ilaahay agtiisa sharafaad ku leedahay qiimahaaga hoos ha u dhigin نعم صح qiimahaaga hoos ha u dhigin صح walaala waxa weeyaan khayr badan baad shaqeynaysaa barnaamijyadaada waan eegay dhowr dalaysaan eegay waxaan eegay barnaamijyo khayri oo ka shaqeyso waxaan eegay waxyaala kana maanta waana khayri waana wixii ilaahay yidhi ku dhawaaqa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxaan ugu necebahay dulmiga waayo ilaahay ayaan dulmin cid isaga oo awood u leh inuu wuxuu doono sameeyo subxaanahu watacaala on cid kala tashan ayuu ilaahay haddana yidhi dulmiga cid ma dulmo ilaahay waanu ka xanaaqaa waxaanu yidhi dulmiga ma ogoli wixii dulmiga galana ilahay agtiisa waxay ku leeyihiin waa la ogyahay عذاب جهنم صح عذاب جهنم ninka ilaahay ka kufriyey ayuu ula qiimayahay ninkaasi abu ibraahimow arrintan waa laga aamusay aad baa looga aamusay arrintan waa laga aamusay qof walba wuxuu waan baqayaa waa laga aamusay waa laga aamusay wallahi ninkii aamusay wuu aamusay maanta waad caafimaad qabtaa maanta da-iyo cimrigaad marayso berri 10 sano ku dar 50 baa tahay 60 baa tahay 70 baa tahay how long intayna baad socon karaysaa نعم maalin lama gaarayo محبوقها محبوق قارية maalintaasi ayaa rabbi subxaana watacaala maalinta aad naftu kaa dhaqaanka si sakaraatulmowtka lagu marinayo waxaad ii sheegtaa inagoo garanaynaa inuu sakaraatulmowt marayno waxaynu garanaynaa janno iyo cadaab waxaynu ognahay oon ka darasinahay in aaminsannahay in ilaahay xitaa la marayo cadaabulqabr صح iyo muxuaha iyo intaas ninka og oon aan ilaahay ka badbaadaynin xumaan hadduu galo wanaag hadduu galana ilaahay subxaana watacaala ugu balaqay in allaha laa yukhlifu lmiicaad bu ilahay ilahay baa ballanka qaaday لا يخلف الميعاد صح ballankan ilaahay baa qaaday abu ibraahim waxaa ka istaagtay culimadu baa ka aamusay aqoonyaankii baa ka aamusay qof walbuu ka aamusay xitaa aniga caawa dad ila qayb galaya weli barnaamijkana way baqeen ka waran maxaa kaa galay waa caynka waan ka xanaaqa caawa wallahi I feel sorry for anigu caawa aad baan yani qalbiga waa emotion yani caawa aad baan u oogay dulmigiiba waxay doonayaan in laga hadlo wax bilaa macnaha laakiin bini aadamka xaqiisa imka ninkan la gubay xaqiiqada walaala waxa weeye arrinkan lama siyaasadeynayo arrinkani waa gacbu u dhacay boorcad buu dhacay ilaahay laga baqay dad ba laga baqaya reer gelin eegata reer may gelin qabiil may gelin kaar baa xitaa marka la qabaayl ku sheegay may gelin yahu keer qabaayl kaas caylad baa goy weliba waxaan maqlay oon arkayaa ku maqlayaa inanka aabaheed waxaa la yidhi markuu inanta malaha la tegay ama ay dee ka hor la sii waayey way hideeyeen waxaa la ii sheegay waa inanta hooyadeeda iyo abtiyaasheed baa la yidhi anteeka tahan saasaan media ku arkaya صح ma aha gariib ma aha dad la israaciyo mujtamac dhan ma aha dad mucayinaa galay dembigan dadkaa mucayinkeeda waxa weeyaan ummad ka fogaatay ilaahay wejigiisa ka fogaatay weeyaan صح dembigan mid la qaadan karayo ma aha caalimta ka aamusay ama sheekha maanta ka aamusay ee arrintaasi aan oogta ka cadayn والله ka gabaday
والله إذا كنا إساء كدبحن إساء كدبحن كفحن وايو نيكا عالمك ونيكا قادقة ونيكا أقوال فيها وكدب الدليل لك عادقة صح وحال الدولية نيكي آموسة ساقع آموسة ربي سبحانه وتعالى وحال له ارتقيسان أيها لك خبا يجي أطالة dadka baqday kugu yiri arrinkaasi meel ku kala jilay waa aan kala gudina bay sheegeen ilaahay baa ku tawakashay barnaamijkaasi xaq buu leeyahay wada la maru leeyahay waxa ka sheekeynaysaa cid lama hujuumayo waxaan ka hadlaynaa waxa waaqiciga ee ka dhacay guriga marxuumkaas iyo carruurtiisa halkan walaalo waxa aan Abu Ibrahimo aad baan kugu Abu Ibrahimo sheekooyinkan iyo waxaan cunsurnimada waxaan ka yani jaahilnimadii hore de how many years ago baan ka hadlaysin soo ma sheekadan waxa adduunka imika soo celiya waxaan in dadku ku dhaqmaan ama bone 45 waxa la yiraahdo soo wallahi aaw ciilka haya waxaan ka xanaaqsan waxa weeyaan xasan waxaan ka xanaaqsan waanu maanta 4.5 waxa laga dhawaaqay furta Soomaaliya ama Soomaaliya waxa maxaa lagu yahay maxaa lagu yahay dadku maxay dadka dhaabaan xasna ku jira khadka Allah ku jira macaan halo assalaamu calaykum asalaam walaalo markaysa waan ku salaamay adiga dhageystayaasha sharafta badanba aan ka qaado magaca khayr la ku siiyo walaal waxa la dhahdaa Fatiya waxaan ka soo hadlay UK aad baan ku salaamay asma soo dhaw la ciil baa walaal waan dhawahay kulli waxaad ka hadlaysay arrintii ku dhacday xamar ka dhacday baan u maleynayaa qofka qaldanay waa saxanta walaal macnaa walaal waxaan doonayay inaan waxoogaa balana ka yar hadlo wixii dareenkayga ah runtii waa arrin argagaxle oo aad iyo aad qof kasta oo damiir leh oo islaam ah oo Soomaaliya oo damqanayaba ka damqaday صح waana masiibo ku dhacday qoys maaha waa masiibo qaran oo ummadda Soomaaliyeed meeshay joogtaba ku dhacday qofkii damiir leh ha qofkii damiir leh ee ilaahay inuu damiirka u siiyay bil aadantinimada amba jiirka damqanaya inuu leh صح waxaan lahaa horta dadkan afar iyo dadka saacado dadka waa la dilay laakiin dilmada ayaa kala xun kala qaraad kala dhib badan weligii Allah hay intaan uu manaairada igu taalamaan arag qof nolosha isagoo nool oo hadlay lagu kunti waa mar subhanallah waxay ummadda Soomaaliyeed u degilaadaay ee dawladda dhulka u saarlaada waa tacadiga ay u geysanayaan walaalahooda islaamka ee la nool ee Soomaaliga ee la jiirka ee la dubka ah صح انت سلعة بصرحمدا اي امدا كو هيان اي امدا تكوريان اي بقولك مغا صاشخ لو بخينيان والله وبالله ان وليغود قبل ما كهرينين دغينين سلام بخيت لو جيسكيد يلا با سنه صدق صح waxaan u dirayaa baan umada ku nool magaalada Muqdisho anigu reer Muqdisho meey gabar Soomaali laana nahay hadana waan ka damqanayaa dhibka ku dhacay dadkaasi صح waxaan u dirayaa oo leeyay war ha ka aamusida ilaahina ka cabsada waxyaalaha noocaas qofkii ka aamusay isaga masiibo ku tahay ha ka aamusina ee dadka waxa sameeyay ee indhaha adag ee qalbiga adag leh qalbiga dhagaxaale alla soo joogtay maxkamadda dhagaxa lagu dilo nolosha lagu gubayagana si ay walaalaheena kale u hididoodan ay arkaan ummadda kale waxa ku kici doontana ay u noqoto cashar iyo tarbiyad صح وارن dawladda meesha ka jirtana waxa la yahay kulli madaxweynaha jirada madaxweyne ku geenda jira way arkayaan dawladuna gacan bidix ku qabato dadka ummadda sida ula dhaqmaysta صح ee kule anigoo reer hebela anigoo reer Siciid anigoo reer Laana sideen inoo sidaasa muxima kale waa Soomaali hawiye iyo kale maxay ku kala duwan yihiin waa sim waa laba ilaahay qof oo wada abuura Soomaali wallahi billahi tallahi inay kala duwaneen aniga waa laba qof oo islaam oo walaalahay oo Soomaaliya aniga waxaan ka ha dadka xuna jaahiliinta aqal asna waxa la yahay oo lagu kuskoyo bil dhagaxa lagu dilo waxa sameeyay aad baan wala ku salaamay inta ka badan ma hadli karay aad baan runtii uga xumahay Allah yaciisa maxay qoyska ay dhibaatada ku dhacdeen waan u tacsiideynaya waxaan leenahay walaalihiin baan waan idin garab taaganay waan idin fognahay qalbiga nigala jirna oo niyada nigala jirna ilaahayna waxaan ka bariyaa wixii waxa sameeyay inuu masaa'id degdeg ku rido ummadana ilaahay dareensiyo xaqa ummadda walaalahood ku leeyihiin Allah yaciisa aad baan ku salaamay walaalo Allah barnaamijka ugu wada kala baan ugu
كنت إبراهيم كنت ترتاح والله كنت راح إنك وحنو إمك والله وان مثلا يا إن أنت في أنت طبعا كسر هذا الشيء بارك الله فيه بان لي هاي الله ما حفظه صح حق إلا قد واقع واحد دكا عين كاسي إلا قوسكو أو أي كوب بدادان وحي دكا نوحي دعي ودعي أنا قد كاسي ودعي أنت كلا كله بداديو صح يا وكبر كل تشوتيو كبر كإلهي وأيا سبحانه وتعالى وصفنا على كبر بني آدم بين كبر إنه مش هنكو ملهين نعم كور أبو إبراهيم قفل الويسة قبيل كيس الويسة أما سو إيجي أما شرير بلي هوس شرير أطيبك عارف أنا أقول هذا الأيام صفة عنو إيك هاي ينوع عنو إيك هاي يقبل كان كذا شيء سو إلهي ما دورا نعم صح كلر يسان عايز سو إلهي ما دورا ها وارن ما أنا جالس دورا بس إلهي دورا إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري نعم إلهي سبحانه وتعالى ودوري أو إسقى إسلام ولا شيء قف جاهل بنا جرين بلا عقية حتى هدو قالي هاي بقول حتى هدو نجوس إنه هو أكون الدين كده هيسنو يحيي ها نجاسك حق لو جملها حق لو جملها ده إلهي بقى أبوري أبال كيس غير بوصنية نعم وارن حق لو جملها صح وحويان هذا محترم سنة ترى هديك أنا كعامس نعم وصور رسولك اللي عليه أنت كده هي ما تشرو ضدك إله بقى أبو سبحانه وتعالى أنا ما تيجي جاي هذيك وحيد قالوا سوتشي والله وبالله والله إننا نقول إنه حيقب جاي سيدنا الله إنه وما جاي جالس يتكلم وعروض جالس كلام علي وأنت دون أدوك أنت وهذا كله ولا عروضي كله ولا هذا إن ما تصل الله قال والله إن عجلات بلينك عن بلينا ودل دلوية وحالي حي ضدك كأم صحق كور وضدك هذا هذان غدا كأم صحق كمان حتى ما ضرور ما هينو إلى هاي حق هوا فتشي حان لنا حي أرجع جادون كوجو يصير وقرها بدن إلى هاي سبحانه وتعالى مصائب أنا لجرينين نلك إلى هاي لا شرك راوان وحقق حي ما أنت اللي رجعي وممكن إلى جوه الرجعي كل أي فعله بحمارنا يصير بطعم با waxa ay gaarayeen meel aan ilaahay aqbali karin Allahu akbar naam waka ilaahay u soo diriyay masaa'ibkiisa ama dabaylo ama duufaano ama gaajo ama cudurro wasiila ku taxabayay waarun ummadii baynu nahay inaguna ummadii ugu dambaysay waa taa maanta masaa'ibka adduunyada ka dhacaya ay fara badan yihiin sax Soomaali maanta ma waxa u hadhay leeleel baa u hadhay may wallahi waxba ma waxa u hadhay qurux baa u hadhay may باقي سو هريبه ولي بين نفسها وحا صح باقي سو هري اي ولي وحا نفسها وحا aan leeyahay ابو ابراهيم انا هذا تليفونك ما قال كنت هلو السلام عليكم عليك السلام امل كيف ادي باكو سلام يا والله adiga iyo daawadayaasha barnaamijka Ibrahim ba aad baan ku salaamay adna walaal macaan soo dhaw walaal waxaan aad iyo aad uga xumahay arinta foosha xun leh ee ka dhacday Soomaaliya Muqdisho ka dhacday hadalkaas magacaawal ma ka kaasar wallahi caaw xitaa hadalka magacaygu waa Abdifataax wax ka soo hadlay magaalada Hargeysa Abdifataax aad ma ku salaamay walaal macaan Hargeysa iyo walaal soo dhaw waxa weeyaan 27 sano waddanka Soomaaliya burbursanaa aan noocaas oo kale ka mudacin waxa weeye waxay cadeynaysaa in aanay meesha wax dawlad ah leeyahay ka jirin arrinka noocaas waa arrin maanta qof waliba u dhagtaagayo dadkii waxa sameeyay cadaalada la horkeeno صح balse waxa nasiib darraa in la maqlay maanta dadkii waxa sameeyay dambi lagu soo deynay baa la maqlay maanta la sheegay aan ka saleeyay subhanallah taas la sheegay walaalaha waxa weeye marka walaal Soomaaliya oo dhan baa walaal u baahan in loo duceeyo meeshaas waxa ka socda waxa weeyaan waa wax bini'aadantinimada meeshii ugu dambeysay baa ka socota walaal maalay صح marka walaal waxaan aad iyo aad aan uga xumahay reerka masaakiinta ee dhibaatadaas bilaa sababta kibirka lagu dilay صح ilaahay idinkii waxaanu ka baryaynaa habaar baanu ilaahay idinkii wax kale awoodi maynaa in ilaahay masiibo ku rido wixii waxaa sameeyay amiin ya rabbil alamin wallahi amiin ya rabbil alamin Soomaali ku gabanaya magac bay ku gabanaya Soomaali magaciisa ya qabiil
لعنة الله عليه قبيل ولا ها marka wala hadii meesha dawladda ka jirto walaa arki doona waxay sameeyaan laakiin ninka soo deeni marka waxaan sameeyay arkeen beenaan meesha waxba ka jirin marka hore ma bay sameeyaan hadii amaani maartay meesha koogiin marka damin ba lagu soo daayay subhanallah qof la dilay la gubayo inta soo qof isugu tageen baa la gubay oo qabiil lagu gubay oo asal lagu gubay oo dadka la tusay oo sida ogeed Soomaali uga dheedis ba damin lagu soo daayay marka maxaad sheegaysaa xasbi Allah wa ni'mal wakiil حسبي الله ولا دعون بين وولنا ما تعملي وارن ادعون ها سو دعي وحصل حماها ان دمي لو سو داي وحي وحاسميه قلبته ولا شيء او نما خليباني ماشي نما خليبان مش شيء انا على الله علينا على الله عليه محو شيء خليبان قفل يب وقفل يبسديه وقفل يبسديه محو شيء خليبان العق بالسي ولا ولا يبسديه الهي بو حتى قيمه الهي بو يبي حسبي الله هذه والله وحاسم يا مالي waxay arkeen inaan Soomaaliya dawladda ka jirin meeshaas wax amaan iyo wax dawladda aan ka jirin arkeen waxa sameeyeen نعم هذا قف وحده نور فرحنا عدالad ka baqanayaan hadii dawladda meesha ku ogeeyay maali waxa ay sameeyeen hadii وارن waxa ay sameeyeen toddobiyo laba Soomaaliya sida hayd baan waxa soo kala dhicin waa markii nagu horeeyay waxayna cadeynaysaa inaan Soomaaliya wax la yiraahdo dawlad iyo wax u doodan aan ka jirin نعم أهرون محاد وشيء سوى ضدك برحون كاس كده مسكين كلا بدي حاس يلا يكون كعب هذه بان وحنا واحد يقول عي وح كسر أنا إذا درينا إلى إذا كنا وحنا كبرينا عيد خير طبعا إلهي ويدعي لما لا يولى ولا لعقنا ولا إن شاء الله وحنا رأينا لبنا تليفون لبنا حاس إن العقور إن شاء الله بيدنا الكريم أو تذكر حلوة رحت واحد وحقوق بصدقنا كنا ولا هذا بإذن الكريم ما يعاو هالرعي لكن إن شاء الله وسعنا وأنا كنت أقرأ فيسبوك لكن واحد دونا لبدي حاس تليفون ذو دي إن شاء الله ضدك يكو تليفون كود خاص كقبطان قفنا أمر الماي تليفين أمر الماي لكن واحد دونا يك التوس وقول عوحود إن شاء الله بإذن الكريم ما خير الله كرسي خير الله كرسي ما رح بنبغى ولا وين ولا شوية دونا إن شاء الله لم بركوده ولا الله يسلمك بيبان الوارك ولا بيبان الوارك الله يبارك فيك مشروع قد انتهينا عروض بدن بو كتغي الله بيتمن عروض وان مقلا ايوه كتغي والله waxa weeyaan adiga khayr Allah ku sii sidaan hadii habeen buu taagantii umada dhibaatada ku dhacay ilaahay baan wax fiican ku weydiin الله يعيسك ولا ما سنت ولا ما سنت والله عاو ما بهد لك انا ابو ابراهيم كنت تاخذك والله ku jira عاو lacagta ku socoto adoo khaliika joog wala ninka hargeysa ka soo hadlayna barakallahu fiiban leeyahay أنا واحد ليا من غير أنا بقول وحب بقول وحيد أبو إبراهيم أنا ما خط ليا أنا ما أنت وحلا في أصلين لكن دول مجا هكا ما أنت كلام بأنا حلو جاي شو شيء وكمان مسرحان مركان في سبب ما بدنا كاتب كوشن يسوع ما تلوج عليه بحوية hargeysa ama Somaliland ilaaha ay abuuraan ku dhaartay haddaanay ummadda halkaa joogta aanay maanta markii uu dhammaaday dagaalka sokeeye haddaan qof walba maanta halkaa ugu soo sheego in la isku qabtay waxaa weyn maqalay carha la soo sheego hal guri oo cidda doontaaba ha lahaatee cid kale maanta ay kaga jirto sida maanta xamar loo haysto beero iyo dhulal waxaan halkan ka hadlaya oo iyagana u diraya fariin dadka reer Somaliland ee maanta qaarkood bay yiraahdeen xildhibaanaanu ka nahay qaarkoodna oo hagal taagayaan halkaa ee walaalahayga Soomaaliyeed haya waxaan halbeeyay waa quraanti ku quuso gurigii ku xigay sida uu cunayo ninka looga yeeriyo Somaliland la leeyahay kaala halkaa noogu kaal war walaalnimo ma jirto runta la doonayo waxay walaalnimo dhici kartaa markaynu aragna maanta ficilkaasoo bisaaskiisii xagga ahaa la mariyey ayay maanta walaalnimo Soomaaliyeed inuu aniga horta aan oran kara weli jira waxaan u baaqayaa waad maqlaysaa aad ma ku maqlaa oo dhageysan Abu Ibrahim waxaan u baaqayaa in uun damiirku damqanayo ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garsan jiritaankiisa ee islaamka ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah لأنه ولا بقى عاد شيء كذي لي عرفتها في مكان برنامج شباب ولا عرفتها ولا عن قطه صح وأفكارها اللي وجهي ليه وحكى لها كمان كلام معايا ولذا خير سؤال لو حلاي حاجة باغ هكون باغان
reerka in lasoo raro somaliland nabadgelyo lagu dejiyo arrintaa oo lasoo xamar laga soo raro lasoo raro hadday iyagu doonayaan hal la soo dejiyo halkaa ummadda ilaahay ha ugu dhex noolaadaan iyagoo hore inta u hadhay baagige soo berina baagada lala dhici maayo haddii aan qisaas la marin hadeeda weli waa shuruud haddii aan qisaas la marin oo aan dadka waxaa sameeyey aan maanta ummadda horteeda iyagoo la darawanayaan qisaas waa shabaab waa hebel waa inta dad loo labisayo dambi kale waa la maleynayni meesha I know dambiga kale lagu xogayo waa kan kuwana ka xun shabaab kuwana ka xun soo ninka lagu dilay iraabi maaha oo wax qarxiyey ee ummadda baabiiyey ee ku gabanaya kitaab ee diin sheeganaya iyo kuwan maxay kala duwan yihiin waxba والله waxay ku kale kuwana ka xun waliba shaar bay hayno ay u xeeyay laba guri baa lagu leeyahay shaarkana waa xuquuq uu leeyahay waa ogta I know حق الجار حق الجار كله هنا وهذه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يهودي إلى شاركها حشيش كي يبدو دافع الناس يسوي نبي شري وهاي رزق هذا شري لا نعم هكذا واحد تصالح وحل الدورية سلاح نبي كورنا يعني وسلاح نبي هو كان حق الجار كله هلا وافتشيه الله أكبر الله أكبر وحال حتى كلا يعني nimanka mas-uuliyiinta ah iyaga oo egada anuu shaksi baan ahay dembiga aan galay iyo waxaan galay ilaahay uma loo taliya anigoo keligiya maaha subxaana watacaala nacam bal ninka yidhi ninka intu lacag fangareeyey yidhi ummadaan madax u ahay oo looga baahan yahay daray in la dayartiro si dhaktar u baahan wax alla waxa ummadda uu yidhi waan mas-uul baan ka ahay ayaa amaama la hor joojinayaa mas-uuliyadda maanta xitaa daabada ama shay xayawaanka ku dayacmaday isagaa la weydiinaya nacam waarun waxay kasbanayaan waxay kasbanayaan dee maalmo noolaadan iyo carruurtooda waxay kasbanayaan xagga hala mariyo dadka walaalo waxaan Abu Ibrahim dadka waxaa sameeyey maxaad adigu ku xukumi lahayd ti ilaahay waxaa sameeyey dadka waxaa sameeyey lixdaa qof ee isugu tagay ninkaa Soomaaliyeed ee gubay walaalo lixda qof hadduu xariijin ku xariiqay iyo hadduu dabka ku dhuftay sow gebigooda uguma jira gelin inay nafta ka jaraan nacam waa isku wada dembiga qoortaa laga guro midda haddaa meel dhigaya midda ayadiyo waraabinayay may lixdaba qof waa in qoorta laga guraa oo la dilaa oo la deldelaa weliba la deldelaa maaha lagu deldelaa xabad ma istaahilaan in xabad lagu dhifto ma istaahilaan waxay istaahilaan iyagoo lagu deldelaa halkaa oo xanuunkii la tuso soo maaha xanuunka la tuso oo la mariyo ee carruurtii uu ninkaasi dhalay arkaan wixii aabahood laga galay in la mariyey kolkaas inta noloshooda u hadhay si magaranaysaa hagaagsan noolaanayaan caawa yaa ogaada inay seexdeen iyo in kale caawa yaa ogaada kasasa iyo aadii kaba xusuusanaya caawa yaa ogaada inay wax cuneen iyo in kale kuma buka kuma yacni bal eegta bal xanuunka intaa le inaguna aan doonay inaynu seexanin nabadgelyo ku seexano sax ya nabadgelyo inay ku seexan jirna war dadkan miyaanay nala mid ahayn miyaanay ummadani nala mid ahayn dadka walaalo waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaankaa wax ka dhaceen jooga war dadkaasi xaqa ha ku dhawaaqaan oo culimadu ha kacdo oo dadku ha kacaan oo aqoontu ha kacdo ilaa imika Abu Ibrahim culimo kacda ma arag iyo qof ka hadlay ma arag waa la wada aamusay waa la wada baqay ilaahay lagama ilaahay أبو إبراهيم إلهي لقى بقى بني آدم بقى لقى بقى بني آدم بقى لقى بقى قبيل بقى لقى بقى حكومة لقى بقى وزير مش عارف شنو لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم أنا ولي إلا بحثي لهنا واحد أبو شيء نعم أبو شيء نعم investigation أبو الصعداء اللي سوق الجوال معك محابك وابا اللي جود أنت والله قبطي محابك يعني كفارة القصة صار محابك يعني بقى محابك يعني وأنا أركي إني كان ما أنت أركي كان لي هنا كاسي بارك الله فيك وان تعوضي وحال يدي
xildhibaan bay wala lahaayeen saalad buu ku sii daayay حسبي الله xildhibaan muxuu sheegayaa lacnatullah caleyh muxuu sheegayaa waxba sheegi maayo yay mooyaane uu lahaa kafaaladna ma aqbalina reerka dhexdiisii tacsiidii buu ka lahaa aqbala soomaali weyn hadday kacdo wallahi bilaana yani qofka damiir leh ee maanta dabqan ilaahay ka baqay subxaana naftu mar bay baxdaa hore u sheeg naftu mar bay baxdaa laakiin haddii dulmi laga aamuso saasaan u noqona dulli imika walaal adigu la iskuma jirtid sax xisiyaad u dhiman doonta ma warbana haynaa maxaa tiri abu ibraahim nooca aynu dhimanayna aniga kula hadlaya qofka siduu u dhimanayo qofna ma oga ilaahay unba og subxaana watacaala laa ilaahay unba geeridu way dhacday waxay u dhacday waxaa waana waxa aynu ku cibro garaadana weeyaan ilaahay baa ilaahay u badbaadin kariy sax laakiin waa cibra laysa waa cibrad haa cibrad baa loo sheegay dadka dhergay ee dulmiga soo baxaya waa naga sugayaa haa inaka waa inaka ilaahay subxaana watacaala tijaabada uu naga sugaya allahuma ballas aniga ilaahu waad arkaysaa waxaan ka doonayaa ma jiro mansab kama doonayo magac kama doonayo waar dulliga iyo dulmiga iyo daalimiinta meeshaas ku urursatay war waxa loo qabto midka dadkana waxaan leeyahay walaalo oo barnaamijka waan ka bixi doonaaye cayladii labadii xaas aabihii ehelkiisii in loo kaco lacag loo urura soo maaha dadkii uu ka dhintay ya صح وين وكان وحورنا سمح عليها صبرا نبي عليه الصلاة والسلام أنبياء يودا ولا امتحاني ولا إذن امتحاني يا صبرا صبرك أيام إلهي سبحانه وتعالى إذن كو قولين دونا وكو دك كلنا وحاليه وشوك قعنت هلا جليو واربفضل بخدو خال شيلين صومالي حتى ما خلنا قطعه وحين لغو قرقاري qof walaalaha hagrana u dhiiba waa caruurtaasi u dhiiba oo waxba u qabanayna aboodiisu cilmayna hala sabarsiiyo oo maanta waxay maanta caruurtaasi ku dhaqdhaqaaqaan ha loo qabto waa intaasina waxaan leeyahay dadka wixii islaam ee dabqanaya صح وانت dabqanaya qabiil baa la isku raacay qabiil baa la isku raacay waa la baqayaa aniga caawa xitaa barnaamijka waxa lagu yiri amaale qaar badan oo igana qayb way baqeen maxay nagu wata maxay naga galay ilaahay nafta mar buu qaadaa baan ku walaalo labada qole ee aan la hadlayo dabare waxa weeyaan qolada sheeganaysa cadaalad ama maxkamad ha noqdaan ama waxa doonaba ha noqdaan isku wada sii cadaalad صح wallahi qalinkaad wax ku qoraysaan ee aad cadaaladda ama waxaa dambigaa fasiishka ama si ay يا ويلك قالنك لو إلهينا وحن وقبريا إنك قالنكيسة قلوعية أما ربك إلهي سبحانه وتعالى معجزة صمّلة تقتل ولا نقصعه آمين إلهي سبحانه وتعالى قرتها وقليل آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين والله كلام صاحبي بارلمان كان من كشافتي iyagana waxaan leeyahay hawl wanaagsan waa ku arkayay dood wanaagsan baa laga galay rag baa hadlayay cid baa hadlaysay ولا عبودي intii hadlaysayna way hadashay inta aan hadalo ha laysku raaco ha ka soo saaraan qaraar rasmi ah taasina waa baarlamaanka waxaan soo hadhay kabinadka farmaajo iyo intuu wato صح maqlaysaa ومقرأ والمعنى ومدحوينه isaga ayaa ah ninka mas'uuliyadda qaaday isaga ayaa amaam Allah horta lala horjeesanaya war dadkaasi si Allah subhanahu wa ta'ala ay raali ku noqon lahaayeen xaqooda ku leeyahay carruurta mare oo carruurta ka la kafaalo qaato oo ragba adduunka ku noole waa ka kacmeesh adigana mid baan ku leeyahay نعم adigana walaal mid baan ku leeyahay الله يعزك سيده خير badan Allah ku siiyo آمين آمين والله كو حفظ عيالك هذا واي وحاد كل يرتي صحق معها ما ولا كدونسه ما لا محاك ربا لا أريد منهم جزاء ولا شكر ولا وشاقة والله كو حفظه وحتى أنا كو كرسيه ولا برنامج كاسي أو عاد كخادم أو سؤال أو contribution كله أو أنو كتير وحي على النود يدنا كتير كله تونا صماها وأنو كتير كله أبو إبراهيم عربت شوكتا الله كده ياكو بركاي قفوا حتى وأنت نقول حرام بأنو كتير كله وأنت أنو كتير كده غير وأنو تسي أمد إلى الإسلام كأو أنو تسي تونا صح
barnaamijkaasina ha ka harin ilaa iyo inta aad meel ka gaadhayso. الله يعزك الله يعزك. reer somaliland iyadana waxaa leeyahay inagamay dhicin inagamana dhici doonto. waxaan leeyahay ku quus qaata ragga in uun maskaxdooda wax ku jira halkaa ku quus qaata. inagana dulmiga gudaheena yaalla ee lagu sheegay midgaan iyo gabooye iyo tumaal iyo magacyo kale aan sheegayno waa dadka ilaahay baa sano abuuray dadka sidooda haloo dhawa waxaanu anigu allamada lama jirta laakiin dadku weli way dafran yihiin dadka xorriyadoodana ha loo daayo hana loo hiiliyo sidaasay maanta xor ku yihiin salaadiin bay leeyihiin cuqaal bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin laakiin madaxweynaha somalilandna waxaan isna leeyahay waa dadkaasi waa dad nool. waxa weeye waa kii gaariga naxariistii janna allah ka waraabiyo waa kii yidhi dheriga haddii milixda laga iloobo dhadhan ma yeesho. haba sheegin ha waar dadkaasi waa milixdii ummadda weeyaan. madaxweynahana waxaa leeyahay allaha ku xafiyo waar dadkaa hoos u eego waa waxa ay wadanka ummadda waxay la leeyihiin waxay qabanayaan dadka u yaro si gaara ha loo eego. waayo dadka si gaara hore maskaxdaa laga ciqaabay bal in ilaahay raxmadiisa idigu sii daayo. waar dadkan hoos ha loo eego. intaasoo walaal oranaya yaadan kuu dacaynaya allah kugu barakeeyo allana ha kugu hanuuniyo adigana xagga annagana noo soo ducee walaalo dadka iyo inta ku taabacda iyo inta ku dhageysata iyo intaana waanu wada salaamayna. الله يعزك أبو إبراهيم بروفيسور أبو الله إبراهيم يخليك الله يخليك الله يخليك ولا الله يخليك كم هاد يعني وقتك قالقة هذا وقت بدن يعني عربتك لهاد لي وحيل ذنبي كوتا هاي إلهي كبرك يا ولا المعانو جزاك الله ألف خير. إلهي ولا الآن ما صدق هاي إلهي سبحانه وتعالى أن نكبر إن وحالة ساحنه صح حق وعجيب وحالة ساحنه قفك واحد حق خامس وأي خامس أنا قايلة هاي وين سكور قفي أمام الله لو سكور قفي ورمضة هنا وحنا أبدا ما الله نعم ولا تبقوا سلامية هذه أنت كتابة عذبة ممكن سلامية برنامج كذا نوع هذا برنامج كذا خير ذا دك تبرعات دك دلاتيشن وأنا أقول رأسنا حي لبدي حاس تليفوني بالجار كأخا وانسوهرنا وصومالي ما وديني لبدا تليفون كنت أخذت كورالو لبدا تليفون لبدا حاس مقالة أنا صومالي ما قانو يسو قرأ يسو لقى فيسبوك سألوا عاونا العاو قدرنا ضدك إلهي يقول حنا أنا وقع ضوح إن شاء الله بإذن الكريم. السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك يا أبو إبراهيم شكرا. أيوة تصبح على خير. تصبح على ألف خير الله يخليك. هلا السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الأمل في السيطة. أوكم مغلى عليكم السلام في عنا ولا في عنته مقعة. والله عاو. الحمد لله ولا فاطمة اللي ده هو اللي كسر الله يا. هي فاطمة from Holland. في عنا الحمد لله كان وين كدرجني وين حلو مشي ويسو. صح. maxaa faadumo la xalay aan sameyn karaa waad aragtaa waxa ka socda magaalada muqdisho xaq darrada ka socota dadka la dulminayo dadka ifka lagu gubayo ee qabiil lagu gubayo ama foolxumo sida walaal shalay baan laas ka soo aan ka dhignay gabar walaasheeya maalinta wiilka la gubo khamiista ahayd ilaa shalay oo la dhaxalo la aasay intaas waan ooynaynay oo waxay sheegaysaa malaha waxa la ooynayna waxay ahayd maalin kasta waa la isgubaa oo qaraxyada maalin kasta muqdisho ka dhacdo waa gubitaan oo maalin kasta waxa wiilasheena ayaa gubanaysa laakiin dhacdadan waxa way ka duwan tahay taas qof nool oo baasiin lagu shubay oo diriskiisa uu ku shubay oo maxaan ku dhahdaay in asoo waxba galabsanin oo caruurtiisa guriga albaabka irtiisa ugu xamaalinaya maxaan ku dhahay la gubay laguna gubay qabiilkiisa takoor iyo dadkeed baa loo gubay yacni geeridu waa xaq waa loo nool yahay bari maanta ninka nool bari uu dhimanayaa oo wayna sugaysaa laakiin waxaan Soomaali ugu xari karin oo uqdada lagu reebay ayaa waxay tahay in wiilkaas qabiilkiisa lagu gubay صح takooriya ayaa lagu gubay shalayna waan ka hadlay laaf baan soo galay gabar walaasheeya waan ka hadlay Soomaali gabar yar oo wiilka uu dhalay waxay tiri oo 7 jir aan ku qiyaas ama 6 jir waxay tiri aabahay uu dhintay tiri
ilmaha yarka ah waxay tiri aabahay uu dhintay geerida waa ku kalsoonahay laakiin aabahay si xun baa loo gubay marka yacni caruurtaas yarka ah oo uqdada ku koraysa oo maxaan ku raahdaa qabiilkoodii Soomaali waa Soomaali dad muslimiin baan nahay Soomaali ma sheeganaa ma Soomaali ma ka go'nahay ma Soomaali ma ka go'naa haduu qabiil naga heri waayo ma Soomaali ma ka dhaxbaxnaa marka question waa su'aal cajiib ah marka walaashay dhacdada xanuunka badan hadda ka hor waqooyiga ka dhacday gabar yar oo aabahay maxaa lagu wiil gabar jeclaaday waa kii gabar odigii markuu reerka u tagay gacanta laga soo jibiyay la garaacay baqaro lagu garaacay gabadha la dilay tan maanta nolosha ninka lagu gubay maxaan ku dhahdaa taas waa qof la garaacay laakiin gubashaan kama dhicin waqooyi kama dhicin qof la gubay oo laf lagu gubay oo la xukumay waqooyi kama dhicin totally kama dhicin xaqiiqda marka runta la sheego runta marka la sheego waqooyi tan ka dhacday koonfur kama dhicin xaasha lillah xaasha lillah xaasha lillah laakiin taas hadii laga hortagi lahaa oo culimada ay ka hortagi lahaa waa laga hortagay waa tii la kacay ee la hadlay ee la xukumay ee lagu xukumay qofkii waxaa sameeyey wuxuu guddoomsaday ama wuxuu falay laakiin ta ka dhacday magaalada muqdisho qof baa la gubayaa weligeed kamay dhicin waqooyi subxaan allah taariikhda wallaahi alcadiim kamay dhicin aamusnaan dadka way ciishay qofku iska aamusa laakiin markay runta noqoto waa run moogta taariikhda kamay dhicin waqooyi seriously kamay dhicin waqooyi weligeedna kamay dhicin carka laygu soo qoray waqooyi bay ka dhacday marka iminka inta wiigan gudihiisa waxaan ku jira gubitaanka ma aysan dhicin laakiin qabiilada la isliidayo Soomaali meel kasta way ka jirtaa madaxda midgaan baan qofka inuu isru midgaan baan qofkaas inuu isugu dhaxtaa isku sii mudo xanuunka oo ilaahay inuu qof ilaahay caabuda fiican oo ilaahay kitaabka intuu furay raado ilaahay waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagana abuurtay kitaabka ilaahay waa xaq uu sheegaya laakiin hadduu isagu caqligiisa iyo maankiisa iska dhaadhiciyo waad gaaban tahay ama waad yeesan tahay isagaba isasay anigu qof aan bini aadam abaalkayse I don't think so inuu qof iga fiicay ama qof iga laandeersan I believe Allah qof iga wanaagsan ma jiro qof iga laandeersan ma jiro waxaan aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaamadiisa inaan ku noolaa laakiin haddii la isiyaaso intaasoo sano waxbaa dhacay la isku qufulo qofka cuqdad waa taas waa cuqdad waa cajiib moogta laakiin tan muqdisho ka dhacday cuqdad way dhaaftay waa midabtikoor caadiya way dhaaftay ha shaag ba anagu waxaan naqanaa shaag baa la gubay laakiin bini aadam ilaahay abuuray subxaanahu wa ta'ala caqli siiyey uu damiir siiyo danqanayo oo xanuunka xitaa qanjiro dareemayo oo life lagu gubayo anigu shaahid iyo sheekashaad maba aragba subxaan allah tii ugu horeysay weeyaan hablaana igu kalifay caawa habla igu kalifeen way baqan way carreen inay barnaamijka xataa la soo galo qof walba wuxuu leeyahay qabiilkaygaan eegaya sumcaddaan u baqaya ilaahay maadka war ilaahay waa subxaana wa tacaala khaaliq alkown isagaa abuuray qofka hadduu mar buu noolaanay is only once qofka bini aadamkii yaciish marra waxda fi lxayaa hadduu ilaahay xaqa bini aadamka ka aamusana ilaahay wuxuu qaanaa shaydaan akhras qofka xaqa ka aamusan waa shaydaan qof aamusan lacag baa la igu siinaya qof la gubaayo lacnatullah calayk lacagtaadii aduba lacnatullah calayk maanta waxaa marka hadda soo cusboonaaday oo caawal naga oonsiiyey lifekaaga ka hor aniga ma arag ma maqlin dadkii baa la soo daayay dadkii oo dhibka geystay miyaa la soo daayay I don't know anu mana ogba anigu I don't know waxa ka jira confirm aqaan anigu waxa Facebook ma maqlaya dadka ila soo xay I don't know haddii la soo daayo qofkii soo daayo waa ilaahay ku daa qofba inta la gubo oo lix qof gubaanba qofkii loo sii deynaya anigu waxaan aqaanaa diinta islaamka qofka waxaad qacanta waa la jaraa asaariq qadciidu qofka qof dilana waa la dilaa xad baa lagu sameeyaa laakiin haddii diin kale ka jirto muqdisho ma aqaano I don't know taa ma aqaano anigu laakiin diinta islaamka waa only one والله قف كل دارت قرآن وقعنت صار ولا إلهي ما هذا هاي وقعنت صار والله وكل ما تلك واحد حسوستها إذا عندك مال هارون والعقد أدونك وجوه عالمك يعني مال هارون هيسو أما فقير نقو أما غني نقو أما فلان نقو لابد أن تضيق وين أوقاتها إلى يعني وضع لما استغرقت دمشق واضح
laabud inaad dhimatid oo turaab lagu geenayo kii qaniga ay kii faqiirkaaba aniga hadda afar saacisho waan daawanaynay culimada Soomaaliyeed way hadlaan gabar yar oo ninkeeda ka sheekayso waa laga hadlaa culimo badan baa soo booda laakiin dhacdadan qof kama hadli karaan way baqayaan culimadu waa munaafiqiin ma maqli jirta ilaahay rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam waxa soo baxay ummadda islaamka munaafiqiin fara badan oo gadheer oo suwaal gaaban gashan oo khamiis gaaban gashan oo diinta islaamka ku soo يعني isku soo matala waxaan muslimiin baan noo diin islaam baan ka laakiin waa munaafiqiin ilaahay ka baqayn qofka xaqa sheeqana wal qorta laga jaro muut shahiida fi sabiilillah qorta laga jaro noqo shahiidku wax ka fiican ma jirto la ilaaha illa qof shahiid wax ka fiican laakiin culimadu ma hadli karaan leena qorta ka baqayn laga jaro waa dulli ya sheekh aamina fuck off sheekh la'natullah alayhi أنا الشيخ ما بقى من قربان سمعنا يا إلهنا وانكب إلهنا كبق معي حق مش يجيو رسولك هو شيء يقول حصاب بحب الأمة ضيدهين وهو دين الإسلام كقاعدة يسبوا راية الإسلام قوم لا يكونوا قوم المسلمين يرفعون الدين الإسلام ويصاب حسا لكن قربان سمعنا يا خميس قاوم بان كشنا لا عقبان قرانا يا ضدك قرانا يا ضد معها وما دويدا مايين حق ويكودا أمس والحقوق المرأة حتى كهد لاين حقوق المرأة إن كهد لاين مهر كديدين رجع ولاد الصوماليين إلا إنه إلهي ضدك سيو ضدك أفريقيا جوجا مش لك هو حاجة يوروب جوجا ولا شيء تص فيهم حسبي الله عليهم ونعم الوكيل أنت سانك كبحنا ولا على قفك إلهي كبقى يا أمضى أوكعيا مسلمين تأم أوكعيا غير كصوماليين شيء ولا تبرعات الله سمي غير كلا بدأ حاس وكتري مرحوم كاس اللهم حريصون عروurtaas 12 ciyaalka ah uqdada lagu reebay aabahood lagu gubay uqdad ay waligood iloobaynan lagu reebay oo aabahood la faquuqay dadkooda la faquuqay faquuq loo dilay asoo waxba qalabsanin waxaa Soomaali weyn laga doonayaa inay caruurtaas iloosiyaan dhacdada hoosh xumeyd oo waxay tari karaan la taro madaxa loo salaaxo dadkii aabahood ka dambeeyay dilkiisana cadaalad la marsiiyo hadii la soo daayo lagu celiyo oo tiilka la saaro si ugu dhaqsaa badan ayaan codsanaynaa hadaan وربجوك الصومالي نحي أنا بوحل لين إلهي دبتيس أو قبيل وحل لين قبيل كلا دلنا كلا دلنا واويل صوماليات أو مسلنا كواحد دلنا سؤال بقول دلنا قبيل محو ترى قبيل موكو جاني يا شنطة قبيل محول إلهي محولي وجعلنا بينكم شعوبا وقبائل اسكو برتا قبيل موت قفل مكاد كان كلمه كسينا يا قبيل بير مكوسه بين حرم مكاد يا قبيل is nothing قبيل قفك كل دقبان هو جاهل متكبر لعنة الله عليكم يا تحي الله ما دحيا إلهي ما توفي سليسا من ربك ما دينك صدح سؤال دول ويدينا يا إسلام ما هذا عمل كذا لو ويدينا يا ما أنت قصة واحد شيء ودرس كين صدق حقوق بقول إنك حقوق الصومالي نما حقوق الإسلام نما حقوق الدرس نما وين بربرسي نينك بنسي خشبتي حتى لما أنت عاوه حولي فدساء هواي قادنا إنسان تعرف ليش يا أختي في الله لأنه وحك ووعد على الرضا تدخل واحد يسكو أدونك ولا نعم أدونك وأدون أنا وحبس محن أنا وحن شوقة إنجليزكا إلهي سبحانه وتعالى وحن كضل بقفل بو إلهي يقانا سبحانه وتعالى صغرى حسبي الله ونعم الوكيل كلمة كون متى حسبي الله ونعم الوكيل قفك هدو حسبي الله محا هدار مثلا عندكم حسبي الله لكن قف بندير يا جبية وانا نورانا يا وين قفكاس حتى سوق ضمير مرامية قفك بني آدم كحتى مركز قنجيري منو دبقنين إنه قفك إلهي سبحانه وتعالى شيء ضمير بو يشا قفك ضوعة وقفك صمي فكرية قفك وحنا كوسمي ما بس يحن كله I make mistake الإيمان نعم الإيمان قوة الإسلام إيمانك يا وح كنترولات ضد إيمانك يا مالين بمالك الدبيسي يا راضي مركا الله كريم ولا السلام عليكم.
aad baan ku salaamay walaasha allah yakhalika waqti fillah macsan ما شاء الله لين كلين بدي قاعد مركي موبلك waxaan isla ku soo celinaysaa iyo kula fadhiya insha Allah live-kaaga ku jira waa fadhiyaay haye waa laga baxay walaalo adigu wallahi billahi sheekh waxay ula jireen Soomaaliyeed oo ka hadlay carabta Abu Ibrahim muassis fudo jooga dowladda Imaaraadka Carabiyada Mutaxida inaan kala hablo badan waxaan ku hadlaynay waad garanaysaa adigu horta magaca telefoonka soo xata isnaada walaalo isnaada caawa barnaamijka wuxuu ka hadlay dawaad la socota waan hore kugu sheegay in kasoo dad badan caawa gaabsadeen ee baqeen ilaahay ka baqwaan ka baqeen bini aadam iyo shakhsiyaday iyo ku yihiin hasbi allah wa ni'mal wakiil fiyum hada kan cad magaalada Muqdisho ninkii la gubay Allahu akbar ha ilaahu nolosha nagu gubay la ilaaha illa anta ilaahay naar ilaahay un baa haysto subhanallah صح هيا ديا كجري ما ku socdaan soo lagu ku soco hadal اللهم صل وسلم على رسول الله والله ولا waa سبحان الله laga cusublaysto oo laga naxo oo naftu ka afariirto qof nool oo nolosha lagu gubayo ilaahay subhanahu wa ta'ala naftiisa oo Soomaali oo waliba Soomaaliya waa Soomaali xasan lana dawaabo waxa dhacayo hadda hadda Soomaali la wada arkay ilaahay asaga dulmi iska maxarimay see adigoo bashar xun oo daciifa ayaa dulmi ula imanaysa adoo og inay maalin ka dambayso waxba lagu kala gaban doonin ilaahay hortiisa marka la istaago ilaahay xoolaha xayawaanka aqliga uu ku yeelin uu u kala xisaab qaadayo adoo qof naf la geliyay amal loo diray maxaa la dhahaye ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naari janno u samaystay adoo ogsaad qof walaalkaaya ee Soomaaliya ee muslim kula ah ayaad u gubi kartaa calashaan gabar buu laga kurso gabadha naga geeyo Allahu akbar Soomaalinimadi Soomaalinima alla ka cabsiga naftiga gariiraysa meeday nafti ilaahay ka badaysa nafti garanaysa maanta waa adduunyo laakiin bari xagee tagi doonaa saacad ka bacda qofna ma garanayo waxaad mudanaysa haddana aad ilaahay la hortagaysa cadaabta qabriga lagaaga bilaabayo qofkaas islaamka naftiisa aad qaadatay ee balse nolosha aad ku gubtay dilku wuba kala yahay nolosha aad ku gubtay anigu waxaan dhihi lahaa dadka meesha ay joogaan ummadda joogta ee dawladda isku sheegaysa ee ummad tiri mas-uul baan ka nahay inay ilaahay kaga baqaano cadaalada lagu qaado in dadka qofka islaamka ee waxba galabsanin dilka loo geystay naftiisa adduunka soo saaran la gubay ilbiisi maanta yatiinta yihiin inay dawladda iyo dadka mas-uulka dadka ka ilaahay uga baqaan dadka sharciga islaamka soo saaraan ee waxay mudan yihiin la marsiiyo tii ilaahayna tii allay tagi meel bay u taalo ilaahay kaga tagi maayo ilaahay laakiin adduunka in qaabtooda lagu mariyo laakiin hadday noqoto hebel midaan qaraabana hooya ama isku talnahayo Soomaali way yaqaanaan wax la rubiya hadda hoosta laga wada hadlay in qofna uu dulmanaado ilmo yar yar oo saqiirana yatiin noqdaan oo aabahood maanta adduunka laga qaatay in kasta kullu nafsu daaqatul mawt oo maanta ajasiisi bay noqotay laakiin waxa hoogay kuwa maanta lagu sababay gacantooda ku gubay waxa ka sii hoog badan dadka maanta mas'uulka dadka meesha jooga ka ah Allahu akbar in qaabtooda mariyaan oo sharci u dhigaan ka dambeeya bixi uu ku waana qaato aw baqoy noqoto dibiyo weesha ku quuso laakiin hadday sheekadu qabiil noqoto maxaa la dhahaye awalba waxa la yiri maskiinkaas waxa lagu dilay waa minority lagu dilay ee kuwana majority inta noqdaan oo nin u soo baxo ama naag xildhibaan isku sheegaysa u soo baxdo bidi ay saas ku ceeshaan ay bariis ku cunaan ay ku maraan wallahi waxaana lama aha subxaana wa tacaala munaafiq markuu dhib geysto mu'minka la joogana waa lala rogaa ilaahay ma kala saaro hadda hadhow agtiisu ku kala saaraa aakhira lagu kala saaray laakiin adduunka waa la wada rogi afka loo wada rogaya inuu ilaahay idin rogin haddaad rogantihiin haddaad hoog ku jirtiin haddaad halaag ku dhex jirtiin haddaad nolol iyo nolol ku dhex jirtiin way idinku sii beeri way idinku sii badan ilaahay inta ka baqdeen oo shacabku istaagaan oo culimadu istaagto oo dawladda isku sheegto istaagto علماء مالت عليهم على أصلهم يا علماء قفل بقلكيس حنبو عشان خليسي صفاش حسبي الله عليه كلا يا علماء أدوك شخص وين
علوم محا علماء قفل بقدوة بنتو سويستو قد سويستو خميس قام قشتو فول حماد الدون كده يقول لا لا حسبي الله ما يتعب ما هو ولا له حسبي الله ونعم الوكيل وحبا ماشي حسبي الله كاكونا ما توا بتكف عشان لك لايسي وبتكلم حيو قالوا حتى قاربة جت لدوك مرة يبقوا غلطة كامل صح ما قرأتي لكن ما شو حتى هلا إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات صعب الكنية دي إخلاص حقيقتها هاي تعصب بتبادي لكن مثل مرافق لمنو قلبي جسدك مثل قلبي جسو مرض كودغي مثل قلبي جسو قبيل كوكادشيرو ما أنت ويلك ولا كذا سومالي أنا ودي ريدين أوراني مانو إلى دش أول بوسوها قبيل فلاني والله وجهوك oo biri guntahaagay ka dhalan oo lugahaagay biri ka soo bixi oo adiga waxa aad xambaarsantahay dhashaa la gubi oo dawlad halkaas idinkaga dhamaatay oo dhibca adduunya halkaas idinkaga dhamaatay oo baraari maysaan meelay maanta Soomaali joogto dulmiga meel kasta maanta daafaha raaska booni la raas cabseer dulmiga maanta wuu yaala ilaahay inta ka baqda Soomaali maxameday dulmiga dadka daysa ummadan la heeb soorayo dadka la faquuqayo dadka masaakiinta madaxa looga taagay ilaahay inta uga baqda qabiil aadara kula gali maayo nin xildhibaan haduu ku qabo aadara kula tagi maayo ku shafeeca qaadi maayo madaxweynaha hadda la dhalato ku shafeeca qaadi maayo ilaahay inta ka baqda giddi Soomaali waa wada salfish giddiga waa salfish mid kasta dhariga maanta wuxuu ku shubayo uu ku dilaya hadii biri maanta qadada mid u qaado biri hadii uu ku dili ilaahay ka baqa oo ilaahay kaga xishooda oo xaq dulmiga maanta ka dhacay halkaas 2,000 oo dulmiba hore u dhacay kanu maanta uu ka sii qaatilsan yahay wiil islaameed oo ilmo korsanaya oo waxba geysanin ayaa nolosha lagu gubay inaan ilaahay nolosha idinku gubin ilaahay inta ka baqa dulmiga dal iyo dibadda u istaaga dadka joogta ugu daran oo qurunka qoraya waxyaabaha koomadiyada qoraya oo aan diirinaynin wallahi ilaahay asis waa u simantahay tan gacanteeda ku gubtay iyo tan maanta qalbiga ugu qoslaysa suma wallahi ilaahay waa u simantahay labaduba waa munaafiqiin ولا ليس سكودي الأمال وأنا كل فدية جزاك الله خير الله يخليك أختي في الله والله أنت منافق ومنافق قفك ما أنت كمان كقراء برامج كان ومنافق ده أدوك والله شيء منافق ومنافق لا بوجيله قفك لا بده وجيله مرنا قراء أوتجي ورا نحن كذا ونحن كذا ومنافق لا بده وجيله ولا بوجيله وقف لا بوجيله وجيلات كأرك وكذا وكذا هرت أرنتن بعد وأرن أدو فرحن هذا بقى واحد السؤال سويدينه dadka waxaan geystay maskaxda miyay ka yiin caadi mise waa qof horta qofka hadduu xanuunsanayo uu yahay majnuun waa laga qaada qalinka 6 qof ma laga qaadi karaa qalinka oo meel qura kusoo wada heshiiyey waa maya waa qabiilkana wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa wajacalnaa baynakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaaruf isku barta mid san weyn iyo mid san dheer iyo mid cad iyo mid madow iyo mid gaaban iyo mid dheer iyo mid lacag leh iyo mid faqiira iyo mid sheekha iyo mid shaytaana kullukum cibaadullah ilaahay baa abuurtay subxaanahu wa tacaala qabriguna dee ma aqan qof lagu riday isaga dahabkiisa gaaban ka aragna qof lagu riday dahabkiisa imika waa la isgubayaaba xataa muslimkii baa xitaa loo waayay space waddanada Yurub inay ku noolaadaan qabrigooda waaba la gubayaa space ma jira baa la yidhi haddaba adoo halkaa tegaya ma ka fakartay muslimow inaan laandheerow qabiilkaagu maku raacaya waxaad haysatidii caruurtaadu tacaaluu macii fi lqabr ma oranaysaa ma oranaysid عندي فلوس عندي ملابس عندي كذا عندي جولري عندي مش عارف شنو كانوا سيدات لو كان سيدات أديكوا قاون كما ولا إلهي سوقوا أبو سبحانه وتعالى وقاون بكفنتي لو قلنا يا أتجلس قبري لا بدنا مترها ضدنا مسبة بكسوق يبا أصحاب السوق تارك الصلاة مش عارف شنو حق الناس وبالسوق يبا قف إلهي كسوق شهادة ده ومبكبت بهذا قبرك لكن قفة أنا مقلي وحن قاضي حلباني وحي لسعودي يوم مدحتوي ورصاو الريال لعقتين كسو قتين مرايكن كي يوروب بايلقى لي قبرك والله العظيم ولا شيء تنال ما تنال ولا شبر واحد قازم جرت أما مقلي هذا كوتالا لكن حق الناس كيلالي نمكن لو جبينا وصومالي ونين صومالي أو نصبة أو عرقي ديد كيس كوش قايسين جري سأتور جري عروتس ku abuuri jiray caruurtiisa inuu luqmata xalaal siiyo wax xalaala siiyo
marka inanba maxay to mش عارف شنو waxay guursadaan Jamaican bay guursadaan waxay guursadaan jareer bay gaala xaarka iska meelin bay guursadaan xaarka wallahi alcadiim tuushu bay qaataan xaar iska meelin inaguna Soomaali baan nadiif udgoon kuwaas la soo dhaweynaya naclatullah ala kulli jaahil mutakabbir iyo qof arintan ka aamusay ilaahay aan cadlo aniga waxa ii balana caawa qof walba Soomaali ugu jira Facebook-ga walaal oo asxaabtayda oo jooga magaalada Muqdisho oo reerka garanaya billaah alaykum telefoonada labada xaas ay soo gudbiyo intaas aan ka rabo wax kale kuma rabo ma la soo snaada ما شاء الله عرب كان علم جاي أغلى الله كل شيء والله وتمنينا ولا نوقف سوقات ولا ما سوقات إن شاء الله نسوق ما شاء الله تبارك الله رقم كودن دنيا خاص كلا بضع حاس بود أو نول إنك أبيس إن Soomaali وين لو العقل لو تبرع الله يتوبن عيال ويتين لا حول ولا قوة Soomaali جوا ولبا شقدي دعي كوسعطول حتى أنا وحنا بقى سيف تقول أنا بقى أكون نسيت جوا المجال المقدسو مدام human right كان لو قد ما ضدك human right كل حساب سنة وضعنا عضانك أرنت وان قد بيان وعوان قد بي وحي حناقة حناقة وحبا أبالي دقي سوانا وان قد بي شكل وحبا أدوك نلاش اللهم واحد حناقة وواحد ضعيف أرنت لكن ولا ترجمي عربي بان كنت ترجمي عربي بان كنت ترجمي إنجليزي بان كنت ترجمي صومالي بان كنت ترجمي ضدك عضانك لو قد بينيا أما هديراتو أما هقابتو كون هدي حتى لماذا قاربة هرية تا أوجاده وحدا كان مجني ولا I don't care no anybody I don't care no one أنا فيسبوك بقول قفاك بوحة بدي والله وحي واش لكن أنا فيسبوك عضاني عربي كترتها لكن أرنت هو ترجمي والله وسم بالله سبحانه وتعالى هدان كنت آخر 1000 سافلين ما أوقف على الموضوع مهما كان ما حوقف عن هذا الموضوع مهما كان لازم هي أداء إسلامك المتحدة العربية الإسلام ذاتك حقوق الإسلام لازم يفهم هذه القضية اللي موجودة في صوماليا مقدشة سبيشلي ذاتك الحرق يا ناس يحرقوا يعني اللايف لو يحرقه لازم المتحدة تخش هذا الموضوع حتى ذاتك حقوق الآدم والدولة كل شيء charity they must talk about this issue they must هنا كارلا issue كارلا they must qofka ka aamusana waa shaytaan akhra soo quraanku u sheegay dad waxa jira xaq maqro oo aamuso kaatimil xuquuq laakiin qofka ka aamuso arintana waa kaadim waa qof ilaahay ka baqayn oo kaadim sir oo xaqir يعني احقر ناس انسان اللي يوقف على الحق ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu faray ka aamusa waa xaqir marka qofku wuxuu noqonayaa kaafir ya muslim laakiin laba waxood baa noqonaya muslim baa noqonaya hadda waxa noqonaya kaafir ya muslim fi same time is not gonna work marka qof walba arintan maqlay ha sii gudbiyo ha shar gareeyo human right kan u gudbiyo anu waan u gudbiyo already anu waan sii day khalaas arintaas ama ha dheeraato ama ha gaabato ama qaar kale ku dhacdo waa socdaa shaqadiis insha Allah bidni karim wala shaqaadi وسوق جبنا والمعاني بريشة أيه ولا وكل فريق سوق جبنا إلهي أدينا كأجزاء أنت سوق جبنا شهر قرية الله كودورو الله يعزك شهر قرية ظلم جناها آمنة ظلم واجرة لكن وح كجرا ما أنت أركينا والله وحلو أتكيسن كلامها لا وحلو أتكيسن كلامها وهرت ضدك وحاسبي يكون قبيل كتاجرية والله العظيم هذا سيحن كلتان به ضد اللي ذكرتان به دبابتين لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو ضد واحد ترى واحد اللي ما بتشوف واحد ترى تموت واحد اللي باحوا وحو انت كاينتا قاچو تموت واحد الأسود في القابات جوعا وقف بخت روح أيضا أنت موت اللي باح لا يراها وحو كل انت كاينتا وحو ترى تموت الأسود في القابات جوعا والأكل ضما يأكلوا كلاب بلدي كلابتو waxay cuntaa meydkay cuntaa laakiin libaaxu wuxuu ugu jiraa kaynta inuu gaajo ko dhintuu libaa wax dhintay cunin waa laga faana wax dhintay karaamada waa caynka halkaas taaganta karaamada muslimka marka qofkii qaate iyo lacagtaad qaadanaysa naagay ama xildhibaanad noqoy ama mas'uul noqow ama wasiir noqow ama mushcaarif noqow ama xuquuq noqow حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بركا ما ماذا قاط عربي تموت الأسود في القابات جوعا libaaxu wuxuu ugu dhintaa kaynta gaajo isagoo cunto u baahan buu saa intuu isu xulu gaajo ugu dhintaa laakiin ma cuna meedka laakiin aydu wax cunta meedka
وما أدعوس كيف فهم كيف من تصفيك مركا إله وحن كبر سبحانه وتعالى ومضى صوماليات إن أرنتا كرد على مجالات مقدسو بيلو وسوى الجيستان مد حلبانة مد وزيرة مد ورباهين بحنا يو حتى أفكار لقبتي ولا عقل سير ورا أمس أبها الدون كوحة وحن قفك حركة العقل سير العكس على وجه جحية ورقة nothing you can make money if you have knowledge لكن هذي لو abuse قريو ولا لو abuse قريو وحتى حيوان أخرس قف جاهل أو شقي حتى جاهلة أو أضو أتكلم بدن تو أضون صدا أو كتجا قف كتجا كفي عن لكن قف لا أضون صدا وح كفي عن كتجا حرية سوق تجي أقونتنا ولا قدر شوان لبرتا لكن لما يبسدوا أقونتي عافماتك لها بحسب سبحانه وتعالى أقونتنا ولا قدر لها وضبرتها انت كلنا وحويان لعق ما sheegto imisa jaahil lacag haysto mutaqabbir oo fool xumo dhameeyay dadka la yasay qaar baa nas oo ka fool xun oo ka naxaysa fool xumadooda khas عليكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انت ku soo gabagabeynaya isnaada xabibti جزاك الله خير انت ku soo gabagabeynaya waxa motion fara badan baa noqday laakiin waxa la xaq الناس la budda in la arko qofkii maanta doonaya inuu tabarucaadka igala qayb qaato dadka aan lacagta u ururin igala qayb qaatana anigu waxaan gobol amaalkiisa waa taqaanaan qabiil I don't give a shit what is qabiil I believe what I am ilaahay bana aaminsan subxaanahu wa ta'ala qof iga qaaday nafta aan ilaahay haddaan ku dhinta shahiidna alxamdulillah shahiid fi sabiilillah laakiin dulmi I never accept it that's my taas waa shicaarka waxa weeyaan waa wax qolo lagu garanay amaan I don't care about anybody. I care myself and my family. You wax xaq u yahay bini aadamka. Marka walaalayaalo kii ka dhimano ka dhimo kii ooy laakiin xaq الناس la budda. Rasuulkeena wuxuu sheegay xaq qofka aamusa waa shaytaan akhras. Illi kaatimil xaq الناس shaytaan qofka ka aamusa xaqa waa shaytaan. Sheekh Sharif uu geeyay. Marka shuuqa Soomaaliyeed wadaadada isku sheegaya خاف ربكم انت يقول جرتا عاو فربad madal magina sheego laakiin ka hadla waxyaabo loo baahan yahay ku mareeysanna lacag baan oreena ood ka xaqaata ku noolaataan urtin ku noolaysan wax loo baahan yahay ina xaq bini aadamka xaqiisiisaan ma aha ina lacag urursan oo TV ka lacag u fadhidaan maxaan uga tagay TV ama u nacay TV bariyahan xaq الناس حق الناس qofka u baahan xaq الناس inuu ka hadlo waa qof friya qofka dulmiga jecel waa qofka isagu taagan aad badin salaam ya asxaabteeda habeen macna wanaagsan xaqana ka dhiidhiya arintaana meel anagso yani Soomaalidu meesha arinta caaw dhacday we have to be in one point one hand one voice wayna noqonaa qacan qura hadal qura meel qura wada noqonaa isku taageernaa rag iyo dumarba inta xaq taqaano inta kalena حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انت كلا waxa la oranayaa حسبي الله ونعم الوكيل laakiin inta xaq ka hadlaysa إلهي كعب صوري سير رسول كان يصوبنا عليه صلاة والسلام برفة محمد شهادة قاضنا إسا الراعي سنة ديسة وإنا حق خليديسة وإلهي درتي human rights whatever you live in Kenya أمريكا Sweden Swiss أمريكا حق human rights كوحلنا حق بولنا قفل بحق بولي حقه هو نفترض بدبادسة واحد تعيش سمي سواء سوق ولا إنجلي فيسبوك إن شاء الله سوالنا كسر ترجمينكم إن شاء الله marka ilaahay waxaan ka baryaa qof walba xaq yaqaan oo xaqiisa u arinta reerkaana kama hareyno 12 caruur ee family labada xaasna we have to kafaala qaadno intay gurigta Facebook we have to u dirnaa wax insha Allah tabarucaadkan waxaan ka sugayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala in labada telefoon la keen labada family inuu soo gelino Facebook iyo ka telefoonkooda hadaa wada mishibiyo dusha dadkii maxaa loo jeedaa tuugtay dhexda ka helinba laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa waahid al-qahaar إلهي بدك الدلاه إلهي بدك أبرة أرساقد إلهي بابحية إلهي بان قفك نفتك قاعدة قفك لكن حق بني آدم حق الآن كدلاه والله العظيم حيموت هبلي عاو برامج كذا قايب قمنا بقايم حنلايا هبلو نفط مرة بحذا إلهينا واحد الأحد القهار هذا بقدن عاو وأنت يبلغ قادنا كبقدن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلمة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لها درجة كبيرة في الإنسان آد بدين سلامي يا حبيبي معنا وناكسن ساسن ku wadana barnaamijkan insha Allah ta'ala aad baan salaamayn soo qoraysa wax inta igala qayb qaadatay iyo inankii ka hadlayay Imaaraat Arabiga Mutaxida Abu Ibrahim jazakallahu alf khair iyo walaasha isnaada inta igala soo qayb qaadatay inta soo qoraysa
aad baan uga xanaaqa wallahi arrinta weligay ma maqal nolosheeda inankii hargeysa ka hadlay weligay ma maqal qof baa nolosha lagu gubaa xasbiya allah wanacmal haddii la soo daayana qofka soo daayo xukum kaa fidiyey wallaahi alcadiim waxa weeyaan kaafir ilaahay baan kugu xawilnay ilaahay wax ka weyna ma jiro xasbiya allah wanacmal wakiil kelmadda xasbiya allah wanacmal wakiil soo qora حسبي الله ونعم الوكيل صوقر وحكى له صوقرنا حسبي الله ونعم الوكيل بدين سلام يا احبي وانا وناكسن شهر قراين ملك سنه قلنا عجل وبالله التوفيق انا مالك اساءات بدين سلام يا تصبحون الف خير سلام الله عليكم مع السلامه.